Assalaamu calaykum dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada cashirkeennii toddobaad oo aynu kaga hadli doono xawaaraha ugu yar ee aad dariiqa ku mari karto ama lagu ogol yahay. Sidii aynu hore usii sheegnay cashirkii kan ka horreeyay ee ku saabsanaa xawaaraha ugu badan ee aad dariiqa ku mari karto ee lagu ogol yahay. Kanina waa mid cashirka hore geegantile ku ah ama kasoo horjeeda. Waxaana loo baahan yahay inaad ogaato maalinta aad proofinka leedahay gaar ahaan aad imtixaanka wadida baabuurka marayso in aad isaga ilaaliso calaamadaha dariiqa sida speedka ugu badan ee lagu ogol yahay iyo inta ugu yar ee lagu ogol yahay. Tusaale ahaan haddii 80 lagu ogol yahay oo aad 40 ku socoto ama 50, waxa laga yaabaa inuu prooferka ama qofka imtixaanka qaadayay uu kugu qabsado amaba uu kugu rido imtixaanka. Dhanka kale haddii aynu ka eegnana speedka ugu badan ama xawaaraha ugu badan ee lagu ogol yahay haddii aad ka badiso taa lafteedana imtixaanka waad ku dhici kartaa waana lagu dhacaa sida caadiga ah. calaamadani waa calaamad goobo ah oo buluug ah, qoraal 30 km/h ku dhex qoran yahay, waxaana loogu talagalay ugu yaraan speedka 30 inaad ku socoto oo aanad ka yareysan haddii aanay jirin sabab kalifaysa inaad intaa ka yareyso. calaamadani waa calaamad tilmaamaysa inay kaa dhamaatay meeshii loogu talagalay inaad 30 aanad ka yareysan. waxaa laga yaabaa in speed intan ka hooseeya lagugu amro ama ka sareeya, labadaba waa macquul. 50 km/h kama yareyn kartid haddii aanay jirin sabab kalifaysa inaad 50 hoos uga yareyso speedka. xawaarahan ama speedkan inta badan sida caadiga ah waxaa lagu maraa magaalada dhexdeeda. halkan waxay nooga muuqda 3 calaamadood oo mid ka mid ah ay tahay calaamadii autobaanka ama motorwayga, wadada weyn ee highwayga baabuurka. autobaanka speedka ugu yar ee aad ku socon karto ee loo xadeeyay waa 60 km/h. waa 60 kaliya. waxaad ka yareyn kartaa haddii ay jirto sabab ama duruuf kalifaysa inaad intaa ka hooseyso, tusaale ahaan saxmad jirta awgeed ama shil ka dhacay meesha awgeed. haddii aad ku socoto wax ka yar 60 km, xaaladdu waxa u ekaanaysaa sawirka saddexaad, labada gaadhi iyo waxaa ka horeeya waad u jeedaan, waa diin baan u malaynayaa. gaadiidkii kale ayaad xanibaysaa ama aad waqtiga ka ridaysaa, saas ay caddaynaysaa calaamadu. sawirkan waa sawir muujinaya muuqaalka autobaanka. autobaankani waa dariiq ka kooban 5 wado oo isku jiha ah, waxayna baabuurtu u kala maraan sida ay u kala xawaaro badan yihiin ama u kala speed badan yihiin. kasoo bilow laynka midigta waxaa loogu talagalay baabuurta waaweyn ama baabuurta aayar u socda. ka ku xiga waa ka sii speedka fiican leh ama ka speedka badan leh. ka ku sii xiga waa ka ugu koorneeya ee bidixda u xiga waa baabuurka aadka u socda ama xoogga u socda. haddii aad rabto inaad baabuur overhaul ku sameyso ama aad dhaafto, waxaad ka overhaul galeynaysaa ama aad ka dhaafaysaa qaybta bidixda, waayo qaybta bidixda markasta way ka speed badan tahay ama ay ka xawaaro badan tahay qaybta midigta. waa sawir kale oo inoo muujinaya muuqaalka autobaanka. qaybta midigta waad aragtaan baabuur waaweyn baa ka muuqata. qaybtan dhexe waa qaybta speedkoogu iska dhexdhexaadka yahay. qaybta bidixdu waa qaybta ugu speedka badan leh. waa speedka ugu yar ee aad autobaanka ku socon karto ama dariiq ku socon karto ayuu sawirka kore inoo cadeynayaa. sawirka hoosena wuxuu cadeynayaa inuu kaa dhamaaday speedkii ugu yaraa ee aad ku socon lahayd. waxaa laga yaabaa in speed ka hooseeya lagugu amro amaba mid ka sareeya.
sawirkan wuxuu inoo muujinayaa autobahn kale u baydhaysa ama crossing. Laba autobahn oo midba dhinac u baxayo, mid toos ayuu u baxayaa waana A6 Richtung Frankfurt Mannheim Saarbrücken iyo A5 Richtung Basel Karlsruhe Heidelberg. waxaa laga yaabaa adiga oo aayar u socda oo qeybta midigta ka haysta wadada in ay kula go'do ama ay kula baydho dariiqa Basel adiga oo raba inaad Frankfurt u socoto xaggeeda. waxaana lagaa rabaa markasta inaad shaashada ama taabulooga ama meeshaas ay magacyadu ku qoran yihiin aad fiiriso, mar horena sii qorshaysato meeshii aad u baydi lahayd ama dariiqa aad adigu leedahay. sawirkan waa sawir muujinaya inay saxmad badani jirto labada dhinacba. waa Stau ama saxmad. markan oo kale waxaa laga yaabaa autobahnka inaad xawaaro aad u yar ku socoto ama aad in badan taagnaatid sababtaas awgeed. intaas waxay nooga eg cashirkeennii koobnaa ee ku saabsanaa xawaaraha ugu yar ee lagu ogol yahay inaad ku socoto. cashirka labaad insha Allah waxaan kusoo qaadan doonaa parkinka ama meelaha loogu talagalay in baabuurta lagu baarkimo.